بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ما أنت إلهي بأسقناتي وحا شاك وكسابسية شركة شاك أو تاريخ دو أيتهاي تضبية لباتنك بش اللحاد لبكن إيو كوبية لباتن waxaa saakay magaalada gaalkacyood ee lagu fuliyay dil qisaas ah ee 18 ee kamid ahaa argagixisadii mudada badan gaalkacyood dadka ku xasuuqi jiray iyo meelo kamid ah Soomaaliya inta kale dhanub ku soo galay laakiin ugu dambeyn laamaha ammaanka ee gobolka Mudug ay qabteen la baaray oo baaritaan ku filan lagu sameeyay baaritaan xeel dheer lagu sameeyay oo muddo 9 bilood la baarayay kadibna loo gudbiyay garsoorka maxkamadda darajada koobaad ay xukuntay dabadeedna maxkamaddii racfaankii la marsiiyay maxkamadda sare ay xukuntay xukunkoodii lagu fuliyay saakay oo 18 kaas dadkii shideyn jiray ahaa saakay ay la xukumay oo la marsiiyay qisaastii xaq loogu lahaa kuwa kalena way xiran yihiin oo intaas ka sii badan oo qaarna baaritaanka ku socdo qaarna baaritaanka u gabagaboobay qaarna maxkamaddii ay processkeedu ku jiraan oo ay ballamihii koobaad mareen iyo dhageysigii koobaad lana xukumi doono meesha kuwaas mareen ay mari doonaan iyaguna aad iyo aad baanu ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna tilaabadaas qaadantay waa mushkilad Soomaaliya laga xaliyay qof kasto Soomaaliya meel kasta uu joogo shida ka xalisantay weeye waa dhagar qabe aan qof Soomaaliya rabin inuu noolaado aad baan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna inay tahay guul u soo hoyatay in dad dambiilayaal ah oo argagixiso ah oo kuwa dadka leyn jiray oo qaraxyada maleegi jiray ah inta la qabto oo maxkamad la saaro la xukumo inay dhacdo muuqato ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna waana magaalada gaalkacyood markii koobaad oo qisaas caynkaasi ay ka dhacdo oo argagixisada al-shabaab dad kamid oo dad ku laayay dadkay laayeen eheladooda hortoodii lagu laayay saaka bay ka dhacday gaalkacyo kama horeyn waa guul u soo hoyatay gobolka Mudug gabi ahaantiisba waxaan u tacsiyeenayaa saakay xalay argagixisadu waxay soo weerartay meel kamid gobolka Mudug oo dariska galmudug anagu aan nahay ah oo la yiraahdo Wasil bay soo weerareen saakay qaraxyo waxay ka geysteen laakiin alxamdulillah ciidamada ammaanka galmudug waa ka saareen waana ka sifeeyeen meeshii ciidamadaasna uu hambalyeynaya dadkii ay waxyeeleen uu tacsiyeenay waxaan leenahay Allah u naxariisto ciidankii iyo shacabka ay waxyeeleen eheladoodina samir iyo iimaan Allah ka siiyo ciiday dhaawaceen Allah caafiyo si dhaqso Ilaahay caafimaad baan u weydiinaynaa iyagana waxaanu leenahay waa u bogaadinayna ciidamada u hambalyeena waxaan leenahay hore ugu socda way garab taaganahay shaqo fiican baad haysaan shaqada aad haysaan oo qabateen saaka aad qabato argixisada uga saarteen Wasilna waa shaqo aad Soomaaliya dhan u haysaan region kaliya uma haysaan adduunka oo dhan u haysaan oo nimankani waa global enemy weeye oo wax adduunka dhacdo ku ah adduunyada oo dhan maaragtay hadda meel kasta oo la joogo nolosha dadka iyo bini'aadanka la dirirsan khaasatan annaga muslimiinta iyo dunida muslimka dib gaar ay ku hayaan oo dibta ay ku hayaan waxa weeye hadii waxay suuro xumeynayaan magacii diinta ayagoon diinu adeegayn oo diin laawayaal ah oo kharibaada iyo alkolada iyo maxaan ku iraahdaa khamrada iyo kufsiga iyo qurunimada oo dhan ka shaqeeya isku dirka dadka iyo waxa ka shaqeeya ugu dambeynna dadka dhiigiisa xalaalsaday ayay waxay dadka u tusiyeen markii hore lagu khaltamay oo dadka Soomaaliyeed ay ku soo dhaxgaleen inay dad muslimiin oo diin u nusreynay yihiin marka anaga mushkiladaas ee muslimiinta oo dhan ba ay ku hayaano magacii muslimkay dileen muslimkii oo dhan waxay galiyeen xinsaar iyo nolol kooban qofka muslimka markuu diyaarad raacay leeyahay leexo baaris la gasho le argagixisaata intaas taa uga gudbo waxaan rabaa inaan hadalkayga gabi ahaantiisba waxaan ka dhigayaa mahadcelin waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad oo shaqadan inay qabsoonto mahadada koobaad iska ilaaha weyn baan u mahadcelinayaa alxamdulillah kasiiran ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillah rabbil caalamiin lama qabteen hadaan ilaahay fududayn lama xukumeen hadaan alla fududayn
lamana dilan haddaan alla fududayn ilaahay waa fududeeyey asagaan ugu mahad celinaynaa marka koobaad ma hadda labaad waxaan u mahad celinaynaa thumma bacdan ilaahay ka gadaal waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo xukuumaddiisa oo runtii xoog badan saaray gaalkacyo inay xorowdo oo ay ka xorowdo cadowgii sanad ka hor ee haystay oo maantay waxay tahay aniga ii tahay sanad guuradii 27kii June waxay ahayd maalintii uu madaxweynuhu i magacaabay in sanadkaas wax noo qabsoomaan oo xoog iyo xoolo iyo caqli iyo miskax iyo talaba la geliyo madaxweynaha ayaa hoggaan u ahaa asaga ayaan markood ugu mahad celinaynaa oo shacabka mudug oo dhanna ay u mahad celinayaan meel joogaanba runtii hoggaamin fiican iyo talo fiican iyo adeeg fiican iyo dad sukulan oo quality leh ayuu isugu geeyay gobolka mudug hoggaamintiisii baana keentay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa booliska gobolka mudug taliyaha booliska Muumin Cabdi Shire taliyaha nabad sugidda gobolka nabad sugidda iyo gobolka taliyaha ciidanka aaga daraawiishta Sharmaarke baarayaasha kiiskan baaray oo sida fiican u baaray maxkamadda darajada koobaad oo iyaduna doorka ugu fiicnaa ka qaadatay iyo garsoorayaasheeda iyo xirlaalinta maxkamadda darajada maxkamadda sare ee Puntland oo iyaduna xukunkii meeshii cadaaladu marsiiyay oo baarayaashii qiimaha badnaa oo xaq iyo baadilka kala saaray oo dadka aan dambiga lahayn ka saaray meesha inaan xukun ku dhicin dambiilayaashiina xukunka cadeeyay inay dambiga leeyihiin iyo garsoorkii iyo xiraalintii soo ogtay baan dhammaan mahad celinayaa ogaadana nimankan intay ku jireen xabsiga waxay isku dayeen inay dad badan Soomaaliyeed lu gooyaan dad badan bay ku farmuqeen dad badan bay been ka sheegeen dad badan bay inay nugu lu gooyaan damceen iyagoo xabsiga ku jireen marin habaabiyaan bay damceen waxa ma hadda iska leh ilaahay baa ma hadda koobaad iska leh mar walba laakiin waxaan u mahad celinaynaa baarayaasha tiimka Umar Bile uu hogaansho oo baarayaasha gobolka ah oo baarayaasha caalamiga ah oo baarayaasha waxgalka ah oo isugu tagay oo dad aan dambi lahayn oo iyagu dhagarqabayaashaasi xariga ku marteen oo kii la xiraaba 5 ilma adeertiisu soo xiraaday waxay ugu tala galaan inay qaba uruguba ka dhigaan oo reer u doodaan oo la isugu yimaado oo mar walba maaragtay maxaan ku iraahdaayay ay ugu tala galaan in dadku isku sii waxaysmo baarayaashii kala saaro intii dambiga lahaydna reebay intii aan dambiga lahaynna xorriyadooda dib u siiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa saxaafadda aad baan ugu mahad celinaynaa waa nala shaqaysay in badan bay nala shaqeeyeen dadka meediyuhu oo ay gudbiyeen khaasatan page-kayga oo page-ka gobolka ah aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dhalinyarada qorta waxaan u mahad celinaynaa shacabka reer mudug oo dal iyo dibadba na kaalmeeyay oo na garab istaagay oo na dhiirigeliyay oo aad iyo aad u heelan inay maaragtay nabadii iyo sharaftii soo ceshadaan meelaan nabade ool sharaf ma yaal gobonimana ma taal meelaan nin rag iska ceshaa joogin oo dadku nacasya laga dhigo oo madaxa inta loo duubta maalin walba iyagoo soo jeeda la iska laynayo ayaan jawaabi karin oo aan gobonimo oola nolol kama jirto waxay garteen gobonimada iyo nolosha iyo sharafku inuu ku jiro inay waxaan la qabto dadka iyo ciidamada ammaanka ay la shaqeeyaan waxaan noo haray shabaabkii gobolka mudug joogay oo soconayay oo shabaabka loo yaqaanay oo qaraxyada watay oo dadka madaxa jabin jiray gacanta dawladda xoogooda ku jira laakiin waxaa jira koobi shabaab baa jira iyagaan hadda bilaabayna waxaa jira dad aan ognahay oo liiskooda aan hayno oo ganacsato ah oo lacagta siin jiray oo wixii dalka lagu kharibin jiray bixin jiray ayagana waa u soo soconnaa waxaa jira kuwo meelo waxbarasho ku gabada oo dadka tashkiiliya oo gabdhaha shabaabka u guuriya oo masaafuriya oo rag iyo dumarba leh ayagana waa u soo soconnaa waxaa jira kuwo dadka marin habaabiya oo ka shaqeeya inay yiraahdaan hal iska daayay nimankaas oo yiraahdayaan maaragtay wax laga sheegin oo dadka bajiyo cabsi geliya ayaguna waa koob shabaab u soo soconnaa waxaa jira kuwo fawdooyin iyo qas iyo isku dir iyo dad isku kicin ka shaqeeya iyagana waa ognahay waana u soo soconnaa intaas iyo in ka sii badan iyo kuwa daroogada gada iyagana waxa weeye ogaada meesha raggaasi maraad maraysaa 18 saaki meesha mareen baad maraysaa waxa weeye waxaan idin marsiinaynaa haddii shabaab annaga kalar nooma kala leh kan wax dila kan wax qarxiya kan u adeega kan lacagta siiya kan fawdada wadanka ka sameeya ilaa shabaab iyagu meeshii amni xumo iyo fawda ka jirta bay gali karaan meel degan shabaab ma galaan
meel nidaamkeedu degan yahay oo dadku maxaan ku rahaa sharciga hoggaansan shabaab ma tagaan meel shabaab tagaan hadaa aragtid waa meel jilaac ka jiro oo dadku la jilciyay oo wax badan oo qasal laga sameeyay qas ma soconayo gobolkan mid cid isku qasina ka samayso si muuqataan u dileynaa qaar baan maxkamadda xataa gaarsiinayn runtaan idin sheegaynaa wallaahi inta nin wiilkii la dilay oo raggiis la qisaasay oo tiirka lagu xiray inaanan midna hulaab u dhaafayn hulaab xume suuqa ka bax nin walbaaba run baa la soo sheegaya been waa soo dhamaatay waxbaan idin sheegaya Soomaaliya hadii maamulada dadka haya oo jooga ay shabaab la diriraan kulligeed waa ka bixi lahaayeen laakiin waxa mushkiladda ay waxa weeye maamul kasto la magacaabo oo gobol kasta jooga iyo meel kasta jooga asaga shabaab la shaqeeya wuxuuna ula shaqeeyaa shabaabka waca naga leexay yiraahdaan naga leexay markay yiraahdaan waa dadka ka adeegan online adigu suuqaaga iska joogo dadka been u sheego maamul isaga dhigo canshuurta ka qaado maamulada waxa la rabaa gobol kasto ay joogaan inay iskuna xiraadaan si dhaban u wada shaqeeyaan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa tiimka gaalka iyo aan wada shaqeynay oo garsoor leh oo dawlad hoose leh oo degmo leh oo daraawiish leh oo garsoor leh oo baariyaal leh oo booliis leh oo ciidamo amni leh oo nabad sugid leh iyo guud ahaanba Puntland xukuumadeeda oo intoo kale u qaybsan dhammaan waa mahadcelinayaa waxa shaqadii fiicneed oo qabateen halkii sano maanta waxaad ku khatimteen halkaas sano aynu wada shaqeynaynay qisaastii dhagar qabayaasha welina waxa la rabaa waa bilow halgankii haddu bilow inoo yahay waxa la rabaa inuu kaba cusub ilano waxa la rabaa inaynu halgankii sii bilowno waxa la rabaa dalka inaynu ka sifayno argagixisada arxanka daran oo malcuuniinta ah oo dadka dhigiisa xalaaleystay inaan dalka ka sifayno aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh